بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرضية فصل كالشراب إن شاء الله وحنا halkan idinka soo gudbin doonaa cashirkeeni aynu kala wada socono dugsiga maadaama uu dugsiga naga fasax yahay arday waxaan galeynay ama waxaynu ku dhex jirnay waxaan galeynay afwan cutubka saddexaad cashirkiisa koobaad cutubka saddexaad marka wuxuu ku saabsan yahay geeraaro waxaan qaadan doonaa cashirkiisa koobaad 3.1 maadadu waa maadada Soomaaliga fasalkuna waa fasalkii shanaad casharkayna maanta dhigan doonaa waxa uu ka hadlayaa geeraarkan ama ka hadlayaa xaashida iigu qortaan macalinka idin soo jeedin doonaa waa macallin Xamse Cabdi casharkan ay gali doono bogga aad ka heli doontaa boggaada daabacan waa 116 haddii aan inta kaga gudbo waxaan u gali doonaa cashirkeena insha Allah laakiin inta aan cashar u gudbin arday waxaan xasuusinayaa inaad casharka markaad dhageysataan inaad soo qaadataan buuggaaga iyo qalinkaaga kadibna aad buugga daabacan soo qaadato qorto laakiin haddii inta aad soo qaadato dhageysato wax macno ballaaran ku sameyn maayaan insha Allah macnaha ku jira ama xigmadda ku jirta in wax la bartaan wax weeyi wixii aad soo dhageysatay inaad qorto markaad qorto ay wixii macno yeelanaya inahaas waa iga dardaaran guud waxaan u guda gali doonaa cashirkeeni oo ah geeraarka koobaad ee cutubka saddexaad xaashida iigu qortaan ama xaashida iigu qortaan geeraarkan waxa tiriyay Cabdi Warsame Baanji oo ku magac dheer Cabdi Gahayr abwaankaas tiriyay gabigan oo ku noolaa Hargeysa iyo miyigeeda magaalada Hargeysa ku noolahay iyo miyigeeda ayuu ku noolaa waxa uu ku soo bandhigayaa aftahanimadiisa awoodda maasocurineed aqoonta iyo waayo aragnimada uu suugaanta u leeyahay wuxuu ku soo bandhigayaa awoodda iyo sida aftahanimada iyo awoodda iyo curinta iyo waxyaabaha iyo aqoonta uu leeyahay dhaqanka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed waxa uu ku halqabsanayaa labada gabyaa ee kala ah Salaan Carabi iyo Cali Dhuux Aadan Garayo labada abwaan waaweyn Allah labadooda waxa naxariistay ayaa uu ku halqabsanayaa laba abwaan aad waaweyn xagga waxaan jeedaa daahan aad weyn waqti horena dhintay ayaan xagga markaan aad waaweyn leeyahay aan u jeedaa way jiraan abwaan kale oo iyaguna sidoodaas oo aad iyaguna loo ixtiraamo waxa kamid ah Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi oo nool isagu Allah caafimaadka iyo cimriga bahaw dheereeyay sidoo kale waxa kamid ah Cabdi Aadan Qays oo isna nool sidoo kale waxa kamid ah abwaanada Soomaaliyeed Allah u naxariistay Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye iyo qaar kale oo fara badan abwaanada imka jooga oo Laab Saalax abwaanadaas ay kamid yihiin abwaano hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed meel soo gaarsiibay oran karnaa intoodii waaweynada hore walibana waxaan toos u guda gali doonaa cashirkeena
oo geeraarka ah. way abwaanku waxa uu yidhi geeraar buu xarafkiisa iyo xakamaynta odhaahda mid kasta xirfadiisa ninba xoor ka dhamaaya anaxinka dabaysha faraska oo xarbinayo xakamaha laga gooyo ama geela xayaab loo xeradii ka buuxa oo mid xariif lisayo. way geeraar buu xarafkiisa geeraar buu almana qofku markuu bilaabayo meel buu doortaayo iskama bilaabo geeraarka ama gabayga meel buu doortaayo ka bilaabaa. way sida uu soo dhigay quruxda buu leeyahay xakamaynta iyo odhaahda sida loo odhayo odhaah aan iska hatata ahayna si wanaagsan soo qurux badan soo dhigayo mid kasta qof kasta alaaba xirfadiisu isticmaalayo sida uu qurxin lahayo wax laga helo oo macaano la wada dhageysto uu ka dhigi lahaa ay mid kasta la maala xirfadiisa ninba xoor ka dhamaayay maana waxaan soo dhigay geeraarkan uu xarafka wanaagsan iyo xakamaynta quruxda badan leh xarafka uu sida wanaagsan soo dhigay mardhow ayuu xoor ka dhamaad almacna ammaan iyo waxyaabo noocaas uu ka helay mardhow laakiin hadduu iska hadlo wuxuu noqonayaa qof iska tiriyo waxba la leeyahay markaa anaxinka dabaysha faraska oo xarbinayo xakamaha laga gooyo ama geela xayaab loo xaridiisa ka buuxo mid xariif lisayo. intana wuxuu ku sheegayaa almacna meeluu ka abaari lahaa quruxda sidoo kale amaba wuxuu leeyahaaba anigu idinku waa daashay buu halkan leeyahay markaa anaxinka dabaysha faraska oo xarbinayo idinku waa daashay anu sida dabayshu ay u dheereyso kala dheeranaya idinkuna markuu farasku tusaalahaan u daalo ayaa la dhahaa faraska oo xarbinayo faras daalay oo xakamaha laga gooyay ama adigu iska soo qaad adigu ordayay markaad istaagto waxaad dareento waa dareemi kartaa idinku leeyahay abwaanadu ku soo qabsanay sida faraska daalay xakamaha laga gooyay baa tiine taani ugu soo wareejiyo maxaa dhahdaa la wareegi doona abwaanimada Soomaaliyeed aniga igu qorab leeyahay xaashido igu daaya ii daaya marka aan xilka qaado xariirta gabyaagiyo murtidaan xulinayo dadka xiisaha qaada way ugu soo xiradaane haddii uu cali xiiqay salaanaha tan xabeebtay aniga waxa waldaaro oo xaashida igu qortaan. intii hore wuxuu soo sheegay waxyaabuhu sameyn lahaa halkan wuxuu leeyahay markaan waxyaabaha soo qabtaad xilkii ani lagu wareejiyo la yiraahdo maanta adaa u mudan ee abwaani xilka qaad abwaanimo wixii markaan xilka qaado xariirta gabyaagiyo macna quruxda gabyaaga iyo waxyaabaha noocaas aan qaado buu leeyahay ay maxaa la dhahdaa muhiimadii ay lahayn aan qaado murtidaan xulinayo waxaan idin soo tabin doonaa quruxdeeda iyo wanaageeda dadka xiisaha qaada geeraarkan ama gabaygan aan soo dhigay sida uu qurux badan yahay dadka xiisu soo qaadaan way ku soo xiradaan ereyga xiradaan waxa weeyaan xoomaan ama ururaan markaan leeyahay markaan murti wanaagsan wax qurux badan ku hadlo dadku way ku soo ururi doonaan way ku soo xeemi doonaan haddii uu cali xiiqay waa banidi ku soo hal qabsanay haddii uu cali xiiqay salaanaha tan xabeebtay labadii abwaani waaweynaa ku soo hal qabsanay aniga waxa waldaaro oo xaashida ugu qortaan xawaldaar waxa weeyi aniga ugu mudan cidda hadda joogta ama maxaa dhahay abwaanada hadda jooga xawaldaar aniga ugu mudan buleeyahay ugu maxay aniga ugu wanaagsanay aniga la igu wareejiyo xaashida igu qoro wari saxiix buleeyahay ilaahay rag badan ka dhigay inaan ugu gabyaaga ugu wanaagsanay Soomaaliyeed aan noqdo ii saxiix buu ayuu leeyahay intaas waxaan ugu dhamaaday geeraarkii iyo beydadkiisa way ugu dhamaaday waxaan u gali doonaa ereyadii ku dhex jiray sharaxaadooda u gali doonaa insha Allah sharaxa ereyada xikmad waxa la macnaa murti xakamayn qurxin xiinka oradka xakame waa bir iyo suun faraska afka lagaga xidho ardayow gaari baad garanaysaa gaariga wuxuu leeyahay gaariga shookaan buu leeyahay shookaanta faraskuna waxa weeyaan waa xakamahanoo waxa laga soo gelinayaa tusaale ahaan baaldiga birta ku jirto kala afka laga dhex gelinayaa xarigna dhagaha dawada la marinayaa ku kala si dheer la qabtana ninka dhabarka fooshan qofka dhabarka fooshan ba ayaaba qabsanaya marka birta wata afka laga gelinayo suunkuna waa xariga dhagaha xagooda dambe laga xidhayo soo birta u xajiyo birta iyo isku xajiyo faraska afka xarbi waa dagaal weeyaan xarbi macna iyagu wad soo daasheen buu isagu ayuu uga jeeday laakiin geeraarka dhexdeeda xiiqay way daalay
waa laba erayo isku soo dhow xarbi marka dagaal ku dhex jirto marka dagaal ku dhex jirto maxaad dareemaysaa xiiq baad dareemaysaa madaan waayo xeradaan xoomaan ama ururaan xawaldaar ugu mudan intaasna waxaa inoogu dhammaaday sharxii ereyada waxaynu u gudbi doonaa weydiimaha uu leeyahay geeraarkani waayo ka warceli weydiimahan kuna qor dhiganahaaga gacanta weydiinta koobaad kuma ayaa tiriyey geeraarkan weydiinta labaad sheeg ujeedada uu hal abuurku u curiyey waxa uu curiyeyna waa geeraarka sheeg ujeedada uu hal abuurku u curiyey geeraarkan baheede waayahay weydiinta saddexaad tuducyada ayaa uu ku halqabsanayaa salaan iyo cali dhuux tuducyada uu ku halqabsanaya ayaad qoraysaa salaan iyo cali dhuux abwaanku waaya afar qor tuduca muujinaya in gabyaaga hal abuurka ah la dhageysto ama berigii horeba la dhageysan jiray dadka Soomaaliyeed ay aad u xiiseyn jireen qor shan halkee ayaa uu cali cabdigaheer ku noolaa cabdigaheer meeshii uu ku noolaa ayaad qoraysaa ardayo insha Allah intaa waxaa noogu dhammaaday cashirkeenii ka hadlayay geeraarkii koobaad ee xaashida igu qortaan ardayo waxaa loo baahan yahay cashirka markaad dhegeysato sidaan horeba idinku soo sheegay mar labaadaan ku celiyey in aad qorto waayo muhiimaddu ama sirta ku jirta waa maxay waa qoridda weeyaan inahaas ayaanu kusoo afmeerayaa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu